kulanti wacan oo wanaagsan ilahantiin baa khiyaartayada hawada naga daawanaysa kusoo dhawaada waraysi aanu la yeelanay afhayeenka golaha cuqaasha ee gobolka Cayn Aqil Maxamed Cabdi Xaaji Halac oo soo maanta nagu soo booqday studio waan ku leenahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana ugu horeyntii aanu aqalka aanu ku niri aqal ku soo warbaahinta oo Cayn daawa ku soo بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمان قلدينا ميديا وحنا marka hore ka salaamay dhamaan dadweynaha deegaamada SSC meel kasto ay degaan iyo dadweynaha deegaamada dhulbaanta oo dhan ilaahna waxaan ugu bariyaa bishan barakeysan ee Ramadaanta dabayaqada in Ilaahay xasanaadkeena waafajiyo khayr Ilaahay ugu barjeeniyo aqal ka waran xaaladda guud ee deegaamada SSC xaaladda guud ee deegaamada SSC waa iska nabadgeliyo abaarihii kullay inta badan soo jirin Ilaahay waa inaga jibiyay nabadgelyo aan rajeenayaa iyo guul iyo israac iyo midnimo aqal mudooyinkan waxa deegaanka Buuhoodle ku sugnaa qaar ka mid ah qurba joogta deegaamada Sool Sanaag Cayn oo qaban qaabiyaasha shirka Khaatumo iyagu magaalada ku sugnaa deegaanka Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ma la kulanteen aqal gudida qaban qaabada shirka Khaatumo aqalahan gudida sharafta leh ka kooban 15 xubnood ka socotay maxaa la yiraahdaa shirkii gobol xaarka oo ahayd shirkii Khaatumo lagu qabanayo deegaamada maxaa la yiraahdaa dhulbaahante oo lagu wada hadlayo arrimaha beesha dhulbaahante waan la kulanay gudigaas Khaatumo si wacan waan u soo dhaweynay meel wacan wax la isla dhigay muhiimaduna waxay ahayd in ay wadaan shir beeshu shirayso oo dhawaan dhici doona hase ahaatee aan la magacaabin goortu dhacay iyo meeshu ka dhacayo toona aqal sidee lagu soo dhaweeyay gudida qaban qaabada shirka Khaatumo gobolkan Buuhoodle gudigaas Khaatumo markii ay soo gaareen deegaamada Buuhoodle ilaa ay ka soo kicitimeen wadamada ay ka yimaadeen North America iyo Europe iyo ilaa ay soo gaareen wadanka walaalaha United States Ethiopia oo ay ka soo degeen Addis Ababa xiriir toos aan la lahayn waanu ka hortagnay habeenimo ay soo galeen magaalada Buuhoodle iyadoo xilli aan caadi ahayn oo saddexdii habeenimo ahayd nasiib wanaag dadka deegaanku kalsooni iyo uu qaba gudida iyo arrimaha cidii daneynaysa arrimaha dhulbaahante saacad gudaheed baa 22 gaari iyo 200 qof ay ku soo dhaweynay si wacan waanu u soo galbinay waana la soo dhaweeyay aqal maxaad kula talinaysaa ama aad ugu baaqaysaa aqalada deegaamada dhulbaahante ee gobolada SSC cuqaasha waxaan leeyahay shaqadiinii aad lahaydeen waxaad moodaa inay bulshada ay laga tabayo ama cid kale ha maroorsato ama idinku beelihiyo shaqadiinii ku soo dhawaada waliba cuqaasha daada yar ee xillidan waaqiciga la shaqeyn karta hadee badankeed leeyahay waxyaalaha jira ha ku soo dhawaato shaqada iyo kuwii hore wixii ka fayooba si fiican ha ugu soo dhawaadeen waad ka warhaysaan waxaad moodaa doorkii cuqaasha ee bulshada ku leeyahay inuu meesha ka maqan yahay iyagana waxaan leeyahay intiina ku soo dhawaada si wacan ugu soo dhawaada dadka la shaqooyinka aad u hayseen leeyihiin maday u qabta hadee badankeed leeyahay saasna kula talinayaa aqal maxaad ugu baaqaysaa salaadiinta deegaamada Sool Sanaag Cayn ee dhulbaahante salaadiinta waxaan ugu baaqayaa salaadiintu markii hore ay jirtay xukuumadii rayidka ahayd ilaa xukuumadii ka dambeysay way koobnaayeen salaadiinta beesha dhulbaahante mar baa jirtay laba ahaayeen iyo mar ay afar ahaayeen maantana waa in jeexan iyo neef waxaad moodaa in carradii ka farabateen khilaafkoodii farabatay dadkii waxyeelo ay ku noqdeen masiibo dadkii loo soo diray ay noqdeen salaadiintu waxaan leeyahay way jiraan qaar fayow oo firfircoon oo maskax fayow oo dhalinyarnimo ahaya waxaan leeyahay salaadiinta calaa kulli xaal dadkiina shacabka rabitaankooda ku shaqeeya dadkiina wuxuu doonaya ku shaqeeya meelo kale aad u shaqaysaan iyo Garowe iyo Hargeysa midna danidi kuma jirto dadkiina wuxuu doonaya ka shaqeeya arrimaha beesha ha kor imaanina haddaad ka hor timaadaan idina waa la kor imaanaya sida dadka u ciseen baa lidin ciseynaya anigu ma arag salaadiin had iyo goor dadkooda iyo dalkooda caayasa
gobolada kale iyo Soomaalida kale laguma yaqaano kuwa dhulbahanto baa qaar lagu arkay waliba waa qaar waxaan leeyahay tan waa fikirku dambeysay sida aad arinta ka yeeshaan u baahnida la macaamilay عقل بدوين كن وحاجة قديان كبوه كوسقنا جودة قابضة شركة خاتمه تو أو يجو كل مرة قاطي اسم ماذا عقاشة على المودين كا يوحجرت كديان ماذا صول سنة عين جارهان قبل كان عينهم كوسقناين سيدو كل واحد شرتا إن قرب تشوف تديان ماذا سي يعني جودة قابضة أيام بحين ديان كولود سيدو لو قصدوا يدور بينتا لقى شيء أنا لقى قصدوا سيدو لو قصدوا ديان كولود guddiga qabanqaabada shirka khaatumo 2 way tageen deegaanka Woodwood Balcad Geedeer Bayaal Dhalaamo Cunay Sarmaantu ka balido col dogoble intaba way tageen oo laga soo dhaweeyay si aan caadi ahayn baa lagu soo dhaweeyay imikana waad ka warhaysana waxay marayaan dhulka meeshii deegaamada SSC ugu dambeysay oo carruur baantay ma oran karo lama soo dhaweyn waxaan leenahay waa la soo dhaweeyay si aan caadi ahayn baa loo soo dhaweeyay media idin ka daawanayeen in Woodwood iyo meel kasta laga soo dhaweeyay meel aan laga soo dhaweyn oo gacmo furan laga oran oo laga casumin ma jirto buuhooda dadweynaha shacabkii garoonka u soo baxay ee 2,000 milyan ee qof ahaa ee heeganka u ahaa soo dhaweynta guddiga waxaan leeyahay shirkaas iyo guddigaas labadu waa najaxayaan insha Allah khayr bina ku dhamaanaya عقل ميجران واحد كلامه على قاتين ذاتك الدجان كودولي وكسر شيء ذا جودة قبل قبضة الشركة خاتمية ذات بيشاس ولا قاتين عقاشة يو محل إلى وحجرت كي علماء الدجان كودول ولا قاتين سوى عن يوسف همين عقل محد أقوبا قصة وقدام بنتي ذاتك يرى عرقدية بيش أنا أرمها بيشة dadka yar carqaladeeya ama isku daya had iyo goor inay carqaladeeyaan arrimaha beesha dhulbaxante ama qurbaha joogeen ama dalka gudihiisa joogeen waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxaan ugu baaqaynaa shirkii Khaatumo 1 waa lagu habaaray cidii arrimaha dhulbaxante iyo ururka iyo maxaa la yiraahdaa shirarka dhulbaxante soo tagto waa lagu habaaray waxaan leenahay habaarkaas idin ku dhicin faraha kala baxa dadkiina kamid ahaa dadkiina aamina عقل سدوا كله وحاجة وكل شيء سنية ملشوين تديجامة الصور سنة عين يجا جودة يدبك محل بباغاي dadweynaha gobolada Sool Sanaagiya Cayn ama SSC ama beesha dhulbaxante isku mid weeyeen toba waxaan ugu baaqayaa Ilaahay inuu marka horeysa waafajiyo khayr iyo barwaaqo iyo nimco waxaan shacabka dhulbaxante meel kasta joogo dal iyo dibadba waa shacab wacan waxaad moodaa in dad siyaasado ku kala majeeran oo ay kala habaabiyeen oo ay shacabku wax kala sheegeen shacabku waa wacan yahay guda iyo dibadba ayanaga marxaati ka ah shacabku waxaan leenahay cidii dantiina wada saad heeganka imika u tihiin ugu ahaada 100% waan idku maasantiin meel kasta joogtaan عقل أدان سؤال دب كوكو نقطة أما أنكو يديبا محايتها وجهة شركة خاتمة الله دقيا سوى قيبتي كوباد لوقبتي ذلك دبديس إسلام مركزنا أي إعلاميا جديد قبل قابضو إن سير لم يدل وقبل دون جودها ديجامة الصور سناجي عين ولو أي مكان لتشو كان جديد قبل قابض شركة خاتمة ديجامة الصور سناجي الشركة ليرادو خاتمه waxaa loo igmaday in shirkiisa labaad lagu qabto gudaha wadanka waa runta ay sheegaysa kii koobaadna waxa lagu qabtay cariga Ingiriiska magaalada London shirkana waa kii dambe beeshu gudaha iyo dawladda isku arkaysay insha Allah ayaheedana ay uga tashan lahayd laguna soo afjari lahaa khilaafka muddada 30 sanadooda aafiyay deegaamada dhulbaxante waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo shirkii jira ee jooga afayeen ka waran xaalad abuurka imika laga wado deegaamada Sool Sanaagiya Cayn هذا هاي جودة قبل قابضة يسوق على الدجامة أنت حالة أبورك عين وحوي حالة الله أبوري ما شركة خاتمه هي جودة محل هذا شغالة صح كتمي والدمبة فك ضنيه أي لهاين يقولك عروضه وحبرشة يا أمريكا كويستي هي شغالة كي دولة كويستين دتك وصل محل هذا وصل لوجو أي أريمة البانته إلى جزء كسيه هي شركة خاتمة طانا كم بعقم دونه حالة عبوره ولا عبوره دجامة الدراسية ده هي دلك جديسة دتك دجامة البانته جديس منك كم بعقم دونه عدي حالة عبور كوتشته وحاول هاي يديك كوبنا نسا كان بحا حالات كوتشته عاقل وحاسدو كلا أدان كويدينو waxa ay gudida qaban qaabadu ay ka yimaadeen qaybaha kala gedisan ee dalka dibadiisa ayagoo ka soo kicitimay dalalka dalka dibadiisa
ما قلت إذا قبل قابضة الشركة خاتمته أيها وفتدا أن كمرة صدق عمدا بس يدك قولين وفتي بعد كدرتين ما يقدي قرا عيد لما راعين قدي محل إلى حمنا كتشوي هالكلو قدي ده كتشري ومبراعي ما أي راعين عيد كله قدي ده يدا يديه ده وحكوسو عاركسة يدا حق ولا يدا أول بسعون السي دات كود كان شوي قدها شوي إذا كمان راعين يدا مالك تجلس نبتقلين كنت جلسة نبتقلين كوصل نقاش إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير بسكوبنا عقل قدامتي محد باقي ساعدان سؤال دي كوكو نقنو ان dadka iyagu deegaamada soor sanaaga aan ka soo jeeday ku jira maamulada hareeraha inaga xiga waxaan ugu baaqayaa dadkaas waa dhamaaday xilligii maxaa la yiraahdaa lagu jiro dhalanteedka ku soo biira dadka dantiina iyo ayaha dalkiina ku soo biiraan ku soo dhawaada wad ma santa caaqil kaasina wuxuu ahaa afhayeenka golaha cuqaasha ee deegaamada sool sanaaga cayn oo aan wareysi kula yeelanay xafiiska aan ku leenahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana wareysiga ay soo timinaya anigoo ah Najiib Cabdulle Cabdixiistan iyo intaanu barnaamijkan oo kala dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga taginaa aniga iyo Caaqil Maxamed Xaaji Cabdi Jaamac Xalaba sidaas iyo nabadgelyo iyo amaana Allah